oo arimahan aad ula socday abwan sidaad u aragtaa go'aankan in funky gaar ahaan bandhigyadii lagu soo dhigi jiray habeenkii Hargeysa laga mamnuucay horta dhowr bilood ka hor ay wasaaradda arrimaha guduhu soo saartay in hoteelada laga mamnuucay in habeenkii lagu qabto xaflado nuxurka go'aankaasi ka dambeeya waxaan filayaa inuu yahay mid la kaca isla mar ahaantaana baalmarsan sharciga laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxa weeye waxa dambiya in hoteeladu ganacsadaan mise waxa dambiya fanka mise waxa dambiya in dadka la maaweeliyo dastuurka Soomaaliland qodobkiisa 16aad farqadiisa 1 iyo tiisa 2 iyo tiisa 3aad ba waxay qaranka ku waajibinayaan horumarka suugaanta iyo fanka iyo dhaqanka waan gartay markay sidaas tahay laakiin waxa la idinku eedeynaya hadda waxa aan gacanta ku hayaa maxkamadda gobolka Maroodijeex warqadii ka soo baxday oo la leeyahay waxaan meesha ka socda habeenkii dumar iyo habla aan asturnayn muqaadaraad balwado goobtaasi lagu dhex isticmaalo music oo dadkii ay ka seexan waayeen waxaan miyaysan ahayn wax in dawladdu ay wax ka qabato loo baahan yahay oo dhaqankii iyo diintii la ilaaliyo sida ay sheegayaan wax kasta oo dhaqankeena iyo diinteena ka hor imanaya dawladdu waan ku taageersanahay laakiin waxaan filayaa in arrimahaasi ay food saara tahay annagu dhaqanka iyo diinta wax kullida ma wadno waxaan wadnaa waa fan iyo suugaan ma garanayo goorta ay noqdeen mamnuuc maxaad ugala jeedaa laab saalax food saaray maxaad ugala jeedaa waa arrin ilaa imika qeyl cadaana wax cadaana looma hayo dembiga la sheegay ee lagu mamnuucay hoteelada miyaanay ka horreynay soo bandhigaan ummadda loo soo bandhigo marka ma waxaad leedahay dadkan magaalada degan iyo dadkii dariska ahaa waxa ay ka cabanayaan dhan waxba kama jiraan oo been bay sheegayaan intaas oo dhan iyo waxaan kala sheegaya buuqa muusiga aad magaalada ka abuurteen buuqa iyo muusiga horta xaafado laguma qabanaya hoteelada lagu qabanaya dawladdu tiyaatarradii bay iibisay tiyaatarkii way iibiyeen hoteelada lacag baanu bixinaa mar hoteelkii baa ganacsanaya mar dadkii baa la maaweelinaya mar xidig waa commercial markay sidaasi tahay arrimahaasi lama oran karo waxay ka hor imanayaan dhaqankii iyo diintii waxaanay buuq iyo khalkhal gelinayaan dadkii iyo dalkii waan gartay marka waa yahay suugaantu kaalin waan gartay laab saalax marka suugaantii si loo sii wado oo saad sheegaysid fankii uu sii hana qaado isla markaana wax xadgudubyo oo dhaqanka ka soo horjeeday diintaana u dhicin sidee la isku haleeshiinaya maxaa tala arrintii habeenka dhaweyd ka dhacday hoteelka Crown xidigoo kaliya taa joogay waraysi bay bixinayeen booliska soo galay waanay joojiyeen arrintaasina waxay ka hor imanaysaa xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka dastuurku u damaanad qaaday faldambiyeed ay gacanta kula jireen oo markaasi dhacay ma jiro annagu ma taageersanin wax kasoo dhaqanka ka hor imanaya laakiin dawladdu iyo ciidamada amnigu moobilada la dhacayo iyo xadgudubyada stationada ka jira la doonaya in wax laga qabto loo baahan yahay laakiin looma baahna meel laga faraxsan yahay oo dad laga maaweelinayo in rabshad iyo buuq lagu abuuro waan gartay aad iyo aad baad u mahadsantahay bulshada qaybaheeda kala duwan aad iyo aad baad kugu mahadcelinayaa xasan dhuxul laab saalax abwaan aad baad mahadsantahay magaalada Hargeysa si toos qadka ugu jira bal markana haddii aynu eegno wararka ciyaaraha